Assalaamu calaykum. Maanta waxaa idin wadaa qiso runtii murugo badan. Gabadhaas arkaysaan waxaa la dhahaa Ajum. Waa gabar Hindiyad ah laakiin wadanka Mareykanka ah joogta. Wiilkana waxaa la dhihi jiray Randall Kaufman. Gabadhaasi wiilkaas waxay isbarteen gabadh oo 17 jir ah iyo wiilka oo 19 jir ah. Markii la weydiiyo la yiri xagee ku baratay waxay tiri after school shaqada aan aadi jiray yaro shaqooyinka ardayda oo kale ayaan isku baranay. Waxay tiri ninka waxaan u luus gareeyay ama u baabi'iyay diinteydii. Markii la weydiiyay diintaadii maxay ahayd waxay tiri muslimad baan ahaa, reer muslimna ka soo jeedaa, culture-keygii, waalidkay iyo familigeedii waxeedii dhan ninka daraadiis ay u luus gareysay. Calaa kulli xaal iyo waxbarashadeedii waxay ka timaaday reer academic ah oo dhakhaatiir ah. Calaa kulli xaal waxay tiri gabadhii ninkii markaan isguursanay 10 sano kadib ayaan uur yeeshay. Ilmo ma rabinay tiri, isaga muu rabin. Uur markaan yeeshay tiri waa baqay, waa naxay. See ugu sheegtaa uurka waliba mataano ahaa, 2 gabdhood mataano ah. Hal cunug xataa muu rabin, see 2 mataano ugu sheegi kartaa. Calaa kulli xaal waxay tiri waa u sheegay. Ninka waxay tiraahday dhibaato badan ayaan ku qabay sanadihii la soo dhaafay. Waxay tiri dhowr mar baan iri ifur waa diiday oo ma aragtay maadaama de ilmaha yarraabay tiri. Calaa kulli xaal adiga 2017kii ayaa maalmaha ka mid ah gurigii waxa waay booliiska la wacay. Gabadhan waxay tiri muxuu ahaa guriga anaa ka soo baxay. Ilmihii waxay tiri waxba kama walwalino, aad aabo fiican oo ilmaha jecel buu ahaa. Waa uga soo tagay ilmaha marnaba aniga maan ka walwalin bay tiri. Aniga ii xumaa laakiin ilmaha ma u xumeyn. Calaa kulli xaal intii bil baa maqnaayay tiri. Ninkii wuxuu bilaabay inuu qamrada isku daldalo, qamrada aad u cabo. 2015kiina waxaa lagu diagnose gareeyay depression. Treatmentii buu galay 1 week kadib iska joojiyay. Calaa kulli xaal dhakhtarkii ku noqday. Wuxuu yiri warhead aad baan u dhibaataysanahay 2017kii. More waxaa la siiyay anti depression la siiyay. Qamro ku dhex daray anti depressionka qamro lama ogola in lagu dhex daro. Kiniiniga iyo qamradii isku dhex daray. Ninkii waa isku dhex waashay. Calaa kulli xaal gabdhihii wuu u diiday inuu ma aragtay text u soo diraan, inay la sheekaystaan, inay la hadlaan. Nag maalmaha ka mid soo wacay qoraalkii soo qortay waa kaasa. Maalmaha soo wacay wuxuu yiri waxaan ku hayaa surprise imo way timaaday guriga markay timi 2 gabdhood waa dilay iyadii lugtu ma aragtay kaga dhuftay xabad. Wuxuu yiri waxaan rabaa in adduunka ku baaba'did. Isagina xabadu madaxa isaga qabtay oo waa isdilay. Gabadhii kaliya hooyadii kaliya hadda nool, 2 gabdhood iyo ninkii isku meel ayay ku duugtay. Dadka waxay dhaheen maxaa isugu duugtay dadka ninka ma iska fogeysid waliba waxay u geysaa. Marka ilaahay hadda way qoomameynaysaa waa taa TikTok qoraaladaas ku soo qoraysa oo dhahaysa I lost everything. Dadkaygii dhan hooyadeed iyo aabaheedna intii ay sheekadan ku jirtay ayay dhinteen mar dhaweyd.